maxkamadda sare waxa ay ku xukuntay dambiile Egas Paul saddex alifle Maxamuud Cali Nuur ina Aamina Muuse daadiisu 42 jir tahay dil toogasho ah oo sharaf darro ah waliba dil sharaf darro ah oo toogasho bay ku xukuntay asbaabta xukunka maxkamadda sare ciidamada qaranku markay aragtay warqadda racfaanka ah ee ay soo qaateen racfaanlayaasha kala ah Egas Paul ama Egas ciidanka booliska saddex alifle Maxamuud Cali Nuur ina Aamina Muuse daadiisu 42 jir ah ka tirsan saldhigga Maxamed Mooge ee qaybta bariga Hargeysa laba racfaanle Egas Paul dable guuleed Cabdiraxmaan Ismaaciil ina Khadra Cali daadiisu 22 jir ah ka tirsan saldhigga Maxamed Mooge ee qaybta bariga Hargeysa racfaankaas oo ay sumadiisu tahay ha isbaaro jiitin laba isbaaro 108/2025 ee 23 bishii labaad 2025 ama 2025 maxkamadda sare markay aragtay galka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qaranka ee gobolada galbeedka ee sumadiisu tahay macda 1 gobolada galbeedka /DDL/30/2025 iyo xukunka maxkamadda darajada koowaad ee gobolada galbeedka ee ku taariikhaysan 22 bishii labaad 2025 maxkamadda sare markay aragtay warqadda mayd baarista ah ee ka soo baxday cisbitaalka guud ee Hargeysa ee sumadiisu tahay ha isbaaro 492 isbaaro 2025 ee ku taariikhaysan 19 bishii labaad 2025 kuna saabsanayd dhimashadii marxuum gaashaanle Cabdi Cali Nuur ina Caashe Xuseen Xasan daadiisu 56 jir ah oo ahaa taliyihii saldhigga Maxamed Mooge ee qaybta bariga Hargeysa maxkamadda sare markay aragtay qiraalka racfaanlaha koobaad ee Egas ciidanka booliska saddex alifle Maxamuud Cali Nuur ina Aamina Muuse 42 jir ah kaas oo ay maxkamadda darajada koobaad ka hor qirtay in uu toori ku dilay marxuum gaashaanle Cabdi Cali Nuur maxkamadda sare markay aragtay qiraalka racfaanlaha labaad ee ciidanka booliska dable guuleed Cabdiraxmaan Ismaaciil ina Khadra Cali daadiisa 22 jir ah kaasoo cadeeyay qirtayna inuu gacan siiyay racfaanlaha koobaad waa Maxamuud Cali Nuure isaga oo sheegay in uu keenay direyska tooreyda kabaha iyo qadadii isla markaana ka furay qolkii uu ku xidhnaa racfaanlaha koobaad maxkamaddu markay daristay garmaqalka maxkamadda darajada koobaad ee gobolada galbeedka iyo dhammaan cadeymaha sawirada marxuumka marag muujinada ku jira galdacwadeedkan todoba maxkamadda sare ee ciidamada qaranku waxa u cadaatay in dambi culusi oo aad u foolxumi dhacay kana dhacay saldhigga Maxamed Mooge ee qaybta bariga Hargeysa gudihiisa maxkamaddu markay akhriday marag furka markhaatiyada koobaad ilaa shanaad marag furkooda kuwaasi oo cadeeyay in uu dambi dhacay racfaanlayaashuna yihiin kuwii galay maxkamadda sare ciidamada qaranka waxa u cadaatay in taariikhdu markay ahayd 18 bishii labaad 2025 intii uu noolaa marxuumka gaashaanle Cabdi Cali Nuur uu kula kulmay saldhigga dhexdiisa racfaanlaha koobaad waa Maxamuud Cali Nuure racfaanlaha koobaad waqti shaqada lagu jiro oo uu xidhnaa macawis uu xidhan yahay racfaanlaha koobaad oo uu taliyuhu ku yidhi waar maxaad macawista kuu xidhay iyada oo la shaqaynayo su'aashaasi wadiye kadibna racfaanlaha koobaad waxa uu ku sameeyay taliyihii amar diido kadib markii uu yidhi digtoonow 2 jeer ee uu diiday ayuu yidhi waad xidhan tahay ugu jawaabay in la xidho isagoo uu la socdo arasaynka saldhiggu racfaanluhu wuxuu ugu jawaabay waa marxuum Cabdi Cali Nuure intii uu noolaa waad eedi doontaa xadhigayga ee maad ka daysid isagoo hanjabaya maad ka daysid sida mar labaadna waxa uu yidhi muddo yaroo kooban ayaad ahaan doontaa gaashaanlaha xukuma saldhigan isaga oo ku gafay qodobka 200 ee xeerka ciqaabta
ciidamada waqtiga nabadda waa tahdiid oo ah tahdiid culus haddana mar saddexaad isagoo oo sita tooreydii direyskii oo dhammaystiran ayaa uu si sharci darro ah ugu galay qolkii uu marxuumku hurday waa intii uu noolaaye waxaan ugu gafay waqtigaana qodobka 470 oo waxa weeye guriga marka la geeyo iidan baa loo helaaday waa sifa sharci darro ah ayuu gurigii uu hurday ugu galay kadibna waxa uu si bareera oo foolxun u fuliyay falkii uu ballanta ku qaaday oo ahaa dilka waxaanu tooreydii dhuunta kaga dhuftay egas gaashaan leh cabdi cali nuur halkaasina qudha uu kaga jaray kadib waxa uu isku dayay inuu baxsado isagoo falkii dilka markuu fuliyay haddana wuxuu isku dayay inuu baxsado wuxuuna orday ilaa ay 1 kiiloomitir iyo badh isagoo leh falkii dilka fuliyay inuu baxsadana haddana isku dayay si xooga ayaana lagu soo qabtay isagoo waliba hanjabaya ayaa si xooga lagu soo qabtay qodobka 10aad maxkamadda sare marka aragtay qodobka 16aad 19aad 45aad 170 200 ee xeerka ciqaabta ciidamada waqtiga nabadda maxkamadda sare marka aragtay qodobka 225 207 208 209 230 230 ee xeerka ciqaabta marka ay dhageysatay difaacii iyo asbaabtii iyo doodii qareennada racfaanlayaasha maxkamadda sare marka ay dhageysatay difaacii iyo doodii xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qaranka maxkamadda sare markay dhageysatay codsigii racfaanlayaasha waxa ay soo saartay xukunkan jamhuuriyadda Soomaaliland magaca ummadda Soomaaliland magaca maxkamadda sare ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xukun maxkamadda sare ee ciidanka qaranka maxkamadda sare waxay ayiday oo raacday xukunkii hore ee maxkamadda darajada koobaad ee gobolada galbeedka kuna soo xukuntay dambiile egas saddex alufle maxamuud cali nuur ina aamina muuse taadiisu 42 jir ah kaasoo si bareer ah toorey ugu dilay marxuum gaashaan leh cali nuur cabdi cali nuur ina caasho xuseen xasan taadiisu 56 jir ah ahaana taliyay saldhiga maxamed mooge ee qaybta bariga hargeysa waxaanu u dhacay dilkaasi 18 bishii labaad abaaro 1:55 duhurnimo maxkamadda sare waxa ay ku xukuntay dambiile egas Paul saddex alifle maxamuud cali nuur ina aamina muuse daadiisu 42 jir tahay dil toogasho ah oo sharaf darro ah waliba dil sharaf darro ah oo toogasho bay ku xukuntay iyadoo u cuskatay qodobka 195 xeerka ciqaabta qodobka 125 bis ee xeerka ciqaabta ciidamada nabadda oo lala akhriyo qodobka 434 ee xeerka ciqaabta guud iyo qodobka 19aad xubintiisa labaad ee xeerka ciqaabta ciidamada oo ah dil aan sharaf lahayn in loo togto iyo aayadda 45aad ee suuratul maa'ida dambiilaha labaad ee egas Paul dable guuled Cabdiraxmaan Ismaaciil ina khadra cali taadiisu 22 jir ah kaasoo oo gacan siin iyo caawin baxsasho siiyay dambiilaha koobaad waa maxamuud cali nuure waxay maxkamadda sare ku xukuntay 12 sano oo ah xabsi ciidan waxaanay u cuskatay qodobka 298 ee xeerka ciqaabta guud waxay kaga xukuntay 5 sano qodobka 306 waxay kaga xukuntay oo ah kaalmeyn baxsasho waxay kaga xukuntay 4 sano halkaasi waa 9 sanadood waxa kale oo ay ku cuslaysay qodobka 118 faqradiisa koobaad oo sheegaya 3 meelood oo meel ahaan marka 9 loo qaybiyo 3 loo qaybiyo maxay noqonaysaa 3 sanadood oo kala ugu kordhaya halkaas suugaynta xabsigu wuxuu noqonayaa 12 sano oo xarig ciidan ah xarigaasi waxa looga soo bilaabaya 18 bishii labaad 2025 waxaana lagu dhawaaqay xukunkan maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bishii labaad 2025 taariikhda miilaadiga oo waafaqsan 26 bisha 8aad ee 1446 ee hijriyada wabillahi tawfiiq maxkamaduna waa inoo xirantay